iyagu waxay leeyihiin dowladdu waxaan u samaynaynaa labada arrimood inaanu tayada kor u qaadno oo caruurtan waxaan qofkani lacagta ku qaadanaya inuu qabanayo aanu hubinno iyo inaanu adkayno in barnaamijka musuqmaasuq lagu samayn karo. labo waxaa isbedelay marka arrintii saddexda arrimood ee dhimani waxa weeye arrintii cuntada waxay noqotay dhulgariirkana waxaa ka dhigay magnitude-ka ee ay arrintani culayska ay lahayd 250 milyan oo dollar. axmed laariyow lacag aad u fara badan weeye. waxaa intaa ka sii daran inagu dee ma caddayn karno meeshay waxaan ku sameeyeenna maynaan joogin, laakiin dadka la soo eedeeyey hal qowmiyad bay u badan yihiin. qowmiyadduna waa qowmiyadda soomaalida. waxa weeye war hadduu wixii yahay dhib jira mujtamacii aynu la noolayn iyo inagabana ina saamaynay isla markaana sumcad xumo inuu keenay, dee waa inaynu wixii dhibaato u aragnay. eg haddaadan aaminsanaynba in dhibaato ku haysato xal ma raadinaysid. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ku soo dhowaada idaacadda KZYSLB ee laga dhegaysto muujadda 105.1 sidoo kalena laga dhegaysan karo meelaha kala duwan oo ay ka mid tahay shabakadda idaacadda kzyslbradio.com ama aad ka daawan kartaan dhinaca social media. idaacaddani waxay idinkaga timaadaa magaalada St Cloud ee gobolka Minnesota. barnaamijkayaga maanta waxaanu kaga hadli doonaa arrimaha ka cusub ama in dhoweydba ka socday ee gobolka Minnesota ka jira ee saameeyey hay-adaha qaar ka mid a hay-adaha dowladda qaar ka mid a ganacsiyada iyo hay-adaha non-profitka iyo bulsho badan oo ku dhaqan gobolka Minnesota. barnaamijkayaga caawa waxaa noogu marti ah Mahdi Warsame oo isagu ah executive directorka CEO-ga hay-adda la yiraahdo Somali Parent Autism Network SPAN. sidoo kale waxa uu gudiyo ama uu ka mid yahay kala duwan isagaa nooga warrami doono. mahdi marka ugu horeysa ku soo dhawow idaacaddan KZYSLB ee magaalada St Cloud. aadna waa ugu mahadsan tahay in anagoo magaalada St Cloud degan aadna soo gaartay oo aadna barnaamijkan nooga warrantay. gobolka Minnesota wax badan baa ka socda ayaamahana arrimaha autismka aad baa looga hadlayay. qiimayn xaaladda guud hadda maxaad ku qiimayn lahayd? dabcan xaalad adag iyo xilli adag baa lagu jiraa. wallaahi runtii arrimaha autismka waxaa ku soo kordhay oo keliya marka hore waalidka Soomaaliyeed caruurta autismka haysta cilmi baadhistii u dambeysay aad iyo aad ba nambarka caruurta Soomaalida ee autismka qabtaa kor ugu kacay. taas waa soo korodhay, horena waa u jirtay laakiin way ka sii dartay, gaar ahaan ilmaha 4 jirada ah iyo kuwa ilmaha 8 jirada ah. waxaa kaloo cusub in barnaamijyadan ilmaha Soomaalidu meelahan caruurta ay geeyaan oo la yiraahdo autism centerska in isbedel weyn lagu sameeyey oo sidii hore wax loo maamuli jiray si aad uga duwan, in hadda kadib wax walba ay noqon doonaan oo shuruuc cusub iyo culaysyo cusub iyo waxyaalo laga rabo inay sameeyaan cusub oo badan lagu sameeyey, taasoo keeni karaysa in dad badan ay saaxada ka baxaan. waxaana lala xidhiidhiyey arrinta musuqmaasuqa oo ma garanaysa hadda aad loo hadalhayo ayaa lala xidhiidhiyey. anigu de inay jirto iyo inaanay jirin hadda uma warhayo, laakiin sida dee ama saxaafadda lagu qoray ama hay-addan la yirahdo DHS Minnesota Department of Human Services hay-adda adeega bulshada ee gobolka Minnesota tallaabooyinkay qaaday waxay la xidhiidhiyaan arrinkaasi inay uu jiro tayaxumo iyo musuqmaasuq maadaama jiraana hay-adaha noocaasa EDBI centerska la yirahdo ama autism centerska in lagu sameeyo isbedel weyn oo aad uga duwan laysama cusub laga rabo, shuruudo cusub oo badan laga rabo. waaya inta aanan u gudagelin dad badan baa waxay isweydiinayaan ama aanan fahansanayn arrimahan musuqa la sheegayo iyo hay-adaha uu saameeyey. bal waxaan nooga warartaa garanay
cunuga xanuunsan oo u jiran autismka waa ognahay dhibaatadaasi ama arrintaasi inay bulshadeenna xanuunkaasi maangaarka aada ugu badan yahay laakiin cunugaas iyo dadkii caruurtii xanuunsanayd xagguu ka soo galay musuqa wax yar nala wadaag sidee baa kaarka caafimaadka u shaqeeyaa hay-adahani maxay yihiin shaqada la qabanayay maxay tahay maxaase keeni karaa in la yidhahdo hay-adaha shaqada aad qabateen qaabka u qabateen sax ma aha ama musuq loo qabsado wallaahi horta aan taariikhda dib kuu celiyo sanado badan ka hor aduu 2015 meelahaas baa adigu gobolkan dood baa ka jirtay dooddaasina waxay ahayd dadka soomaaliyeed ee caruurtooda autismka qabaan inaanay helin adeegyo badan oo ay u baahan yihiin ama meelo caruurta la geyn karo oo ma garanaysaa waxaa jira wax la yihahdo therapis oo lagula tacaalo ama lagu caawiyo caruurta autismka qaba ama maangaarka therapiska marka waxaa jira noocyo specialize ah oo dad laysan haysta oo gaari inay sameeyaan ay khasab tahay oo sida waxaa loo yaqaano speech therapyga oo hadalka ilmaha la barayo waxaa loo yaqaano behavioral therapy ilmaha dhaqanka iyo bulshada suula dhaqmi lahaa la barayo waxaa loo yaqaano occupational therapyga muruqyadiisa iyo jirkiisa iyo gacmihiisa isu isticmaali lahaa la barayo arrimahaasi waa arrimo takhasus gaara u baahan cid walbaa ma bixin karto iyo laysan gaaray u baahan tahay waxaa jira barnaamijyo kale oo qofka la caawinayo laakiin therapiska waaweyn ee shahaadada u baahan aan u baahnayn oo inta badan waxaa la yidhahdaa apply behavioral therapy ama APA baa la yidhaahdaa iyo noocyo badan oo hadda qaarkood kuwii kale waa la joojiyey marka waxaa loo furay marka dadku marka waxay ku doodi jiray soomaalida iyo dadka maarata laga tirada badan yahay waxay ku doodayeen in dadkaasi aanay meel caruurtooda geysan haysan sugitaan badan ama waiting list badanna jiro kadibna barnaamijkan EIDBI-ga la yidhaahdo ayaa gobolku furay macnaheedu waxa weeye xarun baa la furayaa waxyaalo fara badan oo ilmaha nolosha ka mida ayaa laga caawinayaa oo la yidhaahdo ABA laakiin aan tarabiyadii waaweynaaye saddexdaa aan soo sheegayna gaadhsiisnayn oo dad dhakhaatiira iyo dad shahaadooyin waaweyn haysta iyo aan u baahnayn isla markaa qofku wuxuu hadduu ilmuhu haysto lagu sheego maaragtay maangaar inuu yahay ama inta qiimeyn lagu sameeyey inuu serviceskan ama adeegan inuu u qalmo baa marka hore lasoo cadaynayaa kadibna ilmihii waxaa loo bilaabayaa adeegii baa loo bilaabayaa kadibna wuxuu xoqanayaa qofku kaarhka medicaidka oo marka qofkan shaqada u qabanaya ilmaha u shaqaynaya xaruntan iskale kaarhka medicaidku xoqanaya kaarhka markuu xoqdo lacagtii marka dowladda usoo diraysa lacagta medicaidka marka qaybna federaalka dowladda dhexaa bixisa qaybna gobolkaa bixiya waxay hoos tagaa hay-addan la yidhaahdo DHS Minnesota Department of Human Services arrintii marka 2017 markii lasoo gaadhay iyo adigu dhowr sano baa waxaa la yidhi waa in dib u eegis lagu sameeya dabadeedna kulamay qabteen soomaalidu way ka qayb gashay waxaa la yidhi sideebaa loo horumaray marka laba arrimood bay dareemeen mid waxay leeyihiin waa se iyagu leeyihiin xarumahan tayadoodu aad bay u liidataa sidaa daraaddeed waa in shuruudo cusub lagu soo rogaa si tayadooda kor loogu qaado oo wixii ay lacagta ku qaadanayeen inay qabteen la hubiyo laba waxay ka shakisan yihiin inuu musuq maasuq jiro oo dad badan oo shaqadan ama caruur aan istaahilin in shaqadan loo qabto kaarkooda la xoqanayo ama ma garanaysaa ilmihii iyadoo aan shaqo loo qaban kaarkoodii la xoqanayo iyo wixii lamid a kadibna maaragtay gobolka legislatorka ama sanadka iyo aqalka labada aqal ee gobolka Minnesota ayaa sharci cusub soo saaray sharciga cusub wuxuu leeyahay waa in laysanku meel gaara marka hore dadkan la siiyaa kadibna oo January-dan bilaabmaya January-dan hadda soo socda 2026 kadibna sanad kadib looga guuraa laysan rasmiya shuruudo cusub marka oo badan iyo kormeer cusub iyo waxyaalo far badan oo awal aan jiri jirin awal wax iska sahlan buu ahaay qof walba iska furan karo laakiin hadda aad iyo aad baa loo adkeeyey marka kormeerkiina waa lagu adkeeyey
waxaana kaloo loo aqoonsaday barnaamijyada la musuq maasuqi karo oo barnaamijyada musuqa loo isticmaali karo inuu ka mid yahay. sidaa daraaddeed oversightkiisii ama kormeerkiisii baa aada loo adkeeyey. shuruudo cusub baa lagu soo rogay, waxyaalo cusub, qaab cusub oo dadka loogu shaqaynayo. bayber woggii qaabkii beelinka loo sameynayey baa la bedelay, waxyaalo fara badan baa la bedelay. marka dad badan oo soomaaliya oo ganacsigaa ku jira ayaa qaylinaya oo leeyahay oo waxay leeyihiin waxaa loo samaynaya annagaa meeshana laga saaraya dadka laga tirada badan yahay haddaanu nahay iyo wixii lamida. laakiin iyagu waxay leeyihiin dowladdu waxaan u samaynaynaa labada arrimood, inaanu tayada kor u qaadno oo caruurtan waxaan qofkani lacagta ku qaadanayo inuu qabanayo aanu hubino, iyo inaanu adkayno in barnaamijka musuq maasuq lagu samayn karo. waayahay dad badan waxaa laga yaabaa kaarkan caafimaadka qaabkuu shaqeeya inayan aqoonin. marka dabcan kaarka caafimaadka waxay dowladda ee gobolka Minnesota ama dowladda federaalka laga yaabay inay dhaqaala iyadana ku darto. waa canshuurtaas ayaa waxaa lagu bixiyaa adeega. marka waxaa la isku haystaa oo doodu ka taagan tahay canshuurtii dadka laga ururiyey ayaa si qaldan loo isticmaalay oo la musuqay, haddaan si saxa ku fahmay sooma? ha sidaa wey. weliba arinta ma stateka bixiya caafimaadka noocan oo kale mise federaalka? maya stateka maamulaan. sidiisa medicaidka gobolka Minnesota marka la joogo MA baa la yiraahdaa, medical assistance. waxaa jira mid kale oo ay lacagta stateku bixiyo oo la yiraahdo Minnesota Care, oo isaga stateka keliya bixiya. laakiin labaduba waa kaarar caafimaad oo qofka lagu caawinayo, qofkii aan caafimaadkiisa isagu dhaqaalihiisu dadka ay hooseeyaan. MA-ga marka 3 shuruudood baa lagu qaataa. mid waxa weeye in dhaqaalahaagu aada u hooseeyo, midna waxa weeye inaad naafo tahay, midna waxa weeye inaad da' tahay ama xanuunada qaarkood aad qabtid. kan ay soomaalidu xoqanayso ee caruurta autismka la siiyo, MA-ga nooca la siiyo, waxaa lagu qaataa ilmuhu inuu naafo yahay, because iyagu autismka waxay u yaqaaneen naafanimo, developmental disability bay u aqoonsan yihiin. marka naafanimo ku qaataa. marka sidaad waad ku saxsan tahay, gebigeedaba canshuur bay ka timi. ama canshuurta dadka federaalka ha ka timaado ama ha ka timaado midda gobolka ha ka timaadee. medicaid sidiisaba waxa weeye lacagta inteeda badan waxaa bixiya federaalka, qaybna waxaa bixiya stateka. laakiin waxaa maamula oy hoos tagtaa DHS-ta oo ah Minnesota Department of Human Services, qaybta adeegyada bulshada. iyagana waxay u sii direen oo sii maamula oo iyaga uu wakiil uga ah degmooyinka ama countiyada wax la yidhahdo countiska, yani countiga maaragtay dee degmooyinka gobolka Minnesota. marka waa wax sidaa isugu xidhan. shaqadana waa la kala leeyahay, waxyaalana DHS-ta keliyaa qabata, waxyaalana countigaa qabta, waxyaalana cid kalaa qabata. marka waa wax isku wada xidhan wey. waaya hay-addaada magaceeda sida ka muuqata waa hay-ad isku xirta waalidiinta dabcan haysta caruurta autismka. su-aal aad u muhiima jirta. anigu magaaladan iyo dad badanaan garanayaa oo bulshadeena ka mid a caruur haysta, caruur autism haysta. qaarkoodna laga yaabaa inay santiradan isticmaalaan. waxaad sheegaysaa qayladhaan badan inay soo socoto ama wax badan ay soo socdaan. haddii aad waalidka wax la wadaagi lahayd, tusaale ahaan maadaama adigu spam madaxeediina aad tahay, maxaa weye waxyaala aad is leedahay aad bay u saameyn doonaan caruurta, waalidka si gaara? waxaan isleeyahay waxyaalaha ay hadda ay dhaqangeliyeen iyo kuwa soo socdaba markaan eego, anigu waxaan u qaybinayaa 2 qaybood. waxaan u qaybinayaa mustaqbalka dhow iyo mustaqbalka fog. ilaan cadaalad in la sameeyaa loo baahan yahay, maskax fayow oo furanna inaynu ku fikirnayn u baahannahay. anigu waxaan aaminsanahay waxyaalahan ay soo wadaan mustaqbalka dhow dad badan wax la yidhahdo disruption baa dhacaya. yacni waxaa dhacaya dad badan oo waxaan ka diyaar garoobin inay dhib u keenayso, gaar ahaan dadka ganacsiyada iskale, dadka ABS xarumaha dadka iskale. xarumaha waa ku u iman doonaa, waxaa rabaa dhinaca ka fiirisid bulshada. waalidkana dhibku dhinac buu u saameynayaayo dee haddii meeshii aad ilmaha geyn jirtay la xidho ama uu shuruudihii ka soo bixi waayo ama inkastoo aysan badnayn uu ka mid noqdo maalan kuwa musuq maasuqa lagu soo oogay, dee ugu yaraan si ku meel gaara adiga way kuu saameynaysaa
oo inaad meel kale heshid ama aad meel kale raadsatid wakhti bay kugu qaadanaysaa. dhinaca marka laga eego dhib bay yeelanaysaa, laakiin marka laga eego mustaqbalka fog anigu waxaan u malaynayaa inay faa'iido ku jirto. sababtaan sidaa u leeyahay waxa weeye 2 arrimood oo mid walba ay muhiim tahay ayaa meeshii imaanaya. in shuruudaha lagu adkeeyo inay meesha tayeeyaan caruurtan Soomaalida danbaa ugu jirta. sax. sababtoo ah hadday meeshii taya leedahay oo qofkii wixii uu yiri caruurta waa barayaa uu barayo, oo qofku wixii uu yiri waan qabanayaa waa qabanaya, cidda ka faa'iidaysaa waa caruurteeni. dhinaca marka faa'iiday ka yeelanaysa. dhinaca kale faa'iidada ka yeelanaysa waxa weeye dee arrinta musuqmaasuqu haddayba jirto, dee annaga caddayn uma hayno, laakiin haddayba jirto in musuqmaasuqa laga hortagaa dee waana diin oo dad muslimiin aynu nahay, dee inaynu xalaal cun noqono oo dembiga iska ilaalino weeye. isla markaana arrin u keeni lahayd jaaliyadeenna sumcad xumo iyo dhibaato ayay meesha ka saaraysaa. marka in tayadana la hagaajiyo musuqmaasuqna laga hortago, marka mustaqbalka fog la eego inagoo dhan iyo gobolka Minnesota oo dhan baa dani ugu jirtaa iyo ummadoo dhan baa dani ugu jirtaa, waynu ka faa'iidaynaa. marka laakiin isbeddelkan xawliga ku socda dad badan oo Soomaaliyeed oo waalidiin iyo dadka xarumaha leh labadaba culays bay ku tahay, waana indhaha lagama qarsan karo. dee hadda qof dhan baa laga yaabaa ganacsigiisa in laga xidho, dee meeshii uu dhaqaalaha ka helayay ama ku noolaa ama caruurta ka biilanayaba in albaabada loo xidho, ama laba sio ama isagu uu xidho markuu shuruudihii ka soo bixi waayo, ama inta la qabsado laga xidho. labaduba waa imaan karaan. waaya mahdi, hadda marar badan waxaan aniga adigaba af ku dhufanay dadka Soomaaliyeed gobolkan dadka ka shaqeeya gaar ahaan xafiisyada dowladda badanaa qolo gaara afka laguma dhufan jirin. waa la socotaa sababta taa cid walbaan u adeegaa, ra'iis walbaan u adeegaa, diintay doonaan ha ka yimaadaan. qaylaa ka yiriisa gobolkii Minnesota, senataradii, xildhibaanadii dhowrkii cisho haddana soo dhaafay waa loo bareeray magaca Soomaali in la isticmaalo, fartana lagu fiiqo dadka Soomaalida. waxaan ogeyn barnaamij cuntada ah inuu buuq badan ka dhaliyo gobolkan oo la leeyahay 250 milyan lacag ah ayay loonsadeen dad barnaamijkii cuntada. arrinta autismka sida aan xogta ku maqlayo linkiga wuxuu ka soo galay barnaamijka cuntada dad lagu daba jiray ayuu ka soo daba galay. adiga ahaantaada haddaad dadka Soomaalida ah bal haddaad siday u arkaan arrintan musuqa ah ee laga hadlayo lagu eedeynayo ee weliba buuqa badan dhalisay la leeyahay arrintii fuudka waxaaba ka daran caruurtii naafada ahayd oo dhimirka iyo jirkaba ka xanuunsanaa ayay musuqeen dhaqaalahoodii. marka siday u arkaan dadka Soomaalida? kulley dhinacyo badan baad ka eegi doontaa arrintan. horta waa su-aal aad iyo aad u muhiim ah. waxaana kaa rabaa oo kaa codsan lahaa inaad in yar iyo ogolaatid inaan faahfaahin dheer ka bixiyo. horta markii uu dembi uu yimaado faldembiyeed wax lagu sheegay, ama ha noqdo mid keenaya in qof dee xabsi aado oo qof dembi lagu xukumo, ama ha noqdo mid sumcad xumo keenaya, kiisku markuu kiis weyn noqdo oo high profile noqdo waxaa la rabaa in laga eego 3 dhinac. 3daa dhinac haddaan laga eegin oo aynaan dadkeena Soomaalidu ku baraarugin 3da dhinacba inay mid walba wax jira oo aan la iska indhatiri karin yahay, waxa weeye dhibbaa ina soo gaadhaya. dhinaca koowaad waxa weeye qofkan la soo eedeeyey xuquuqdiisa sharci. yacni qofkan la soo eedeeyey ee la yiri waxbuu dhacay ama dembi buu galay, in la ilaaliyo magaranaysa xuquuqdiisa sharci, in loo yar fiican loo qabto, talo wanaagsan oo sharci xagga sharciyada inuu helo, inuu magaranaysaa sida ay ugu badinayso qaabka ay ugu badinayso ugu fiican ee ugu dhibyara isu difaacayo. arrintaasi marka waa case by case, yacni waa arrin u gaara qofkan la soo eedeeyey iyo qoyskiisa iyo saaxiibadiisa u gaartahay. yacni arrin jaaliyadda oo dhan qusaysa maaha. shakhsi baa la soo eedeeyey, shakhsigaasi waxaa la rabaa innaga waxaa uuna naga quseeya in xuquuqdiisa lagu tuman, dembi uusan gelinna inaan la saarin, beenna laga sheegin, isaguna uu garto inuu waddankan xuquuq leeyahay, una isdifaaco oo loo yar wanaagsan qabsado qaabku dembigan uga galgalan lahaa inuu falankeed qabto ama isaga difaaci lahaa. taas waa dhinac in laga eego u baahan. Soomaaliduna way taqaan intaas oo dee waa la sameeyaa, qof walbaa loo yar wuu qabsadaa, maxkamad baa ama xukunta ama kiiska ku weyda iyadoo wax dhibi kama taagna.
qodobka dhinaca labaad ee in laga eega u baahan waxa weeye waa dhinaca sumcadda jaaliyadda maadaamuu kiiskani yahay kiis high profile oo hadalhayn badan keenaya waa in laga difaaca jaaliyadda wixii u keenaya magaca xumo iyo in lagu sameeyo takoor gaar ah takoorka gaarka afka qalaad waxaa lagu yiraahdaa laba magac baa la isticmaalaa mid waxa weeye waxa loo yaqaano maaragtay ethnic profiling wax la yiraahdo yani in qolo gaara sharciga lagu qaado cid kalena aan dadka kalena la iska indhatiro oo maaragtay ethnic profiling wax la yiraahdo ama mid nooc kale jira oo la yiraahdo guilty by association oo macnaheedu tahay because Soomaali baa sameeyay Soomaali kastaana dambigii waa kula jira oo la yiraahdo marka wixii Soomaali baa samaysay taana waxa loo baahan yahay hogaamiyayaasha jaaliyadda iyo jaaliyaddu inay garato arrinta tani maadaama ay sumcad xumo keenayso ama magaceeni meel walba lagu jiidayo lagu hadalhayo qaabkaynu isaga difaaci lahayn ama aynu uga hadli lahayn ama sumcadda jaaliyadda loo ilaalin lahaa inaynu qorshe ka leenahay qaybta saddexaad oo in laga eego dhinaca saddexaad in laga eego u baahno in aaminsanay tadayacan inay tahay labadan kale waa la sameeyaa laakiin midda dayacani waa midaan soo wado waxa weeye war hadduu wixii yahay dhib jira mujtamacii aynu la noolayn iyo inagabana ina saameynaya isla markaana sumcad xumo inuu keenay de waa inaynu wixii dhibaato u aragnay eg haddaadan aaminsanaynba in dhibaato ku haysato xal ma raadinaysid marka in la yidhahdo war dhib baa ina hayste arrintan maxaynu diagnostic yani intaynu wixii u fiirsano horta maxaa ka jira waxan haddii wax ka jiraan jaaliyaddu marka isu timaado oo la yidhahdo war maxaa inaga khaldan war see baynu wax uga qabannaa war xaggee baa laynaga soo galay war arrinta tan maxaynu ka qaban karnaa war dadkeenna sidee baynu u wacyigelin karnaa hadda tusaalaan ku siinaya dhowr tusaale yaror degdeg aan rabaa inaan ku siiyo anigu markii horta arrintan cuntadan laleeyahay waa la dhacay oo feeding our future markii ay dhacday arrinteedu anigu horta Columbus baan ku noolaa bilowgii hore Columbus Ohio ku noolaa idaacadahan kala socday iyo saxaafadda magaalada markaan imid oo usoo guuray iyada oo aad hawsheedu hadalaynteenu u badantay baan anigu Columbus soo degay Minneapolis soo degay oo covidkii kadib weli ma arag cid ka hadlaysa maalin baan masjid ku tukaday masaajidada magaalada ka mid a nin imaama khayr badan allah siiya baa si fiican uga hadlay arrinta fraudka iyo musuqmaasuqa iyo diintu waxay ka qabto iyo waxa jaaliyadda la gudboon iyo dad qofka muslimka waxa la gudboon arrin kale oo tusaale ku soo qaadanayo oo high profile ahayd beriga aan Columbus baan deganaa sanado badan ka hor caruurtii lagu eedeeyey inay rabeen inay baxaan oo shabaab ay ku beeraan waxaa dhacay caruurtaasi ninkii berigaa joogay maartay waxaa la yidhaahdaa marka halkan magaca looga yaqaana waxa weeye US attorney baa la yidhahdaa waa xeeraliyaha dowladda maxkamadaha federaalka u qaabilsan gobolka marka US attorneyga Mr Lugar ninkii berigaa joogay Obama magacaabay Obama administration wuu ahaa kadibna markii Biden uu soo noqday Biden baa markana magacaabay 2 jeer buu noqday sida war sugan ii sheegayo ama aan xogaal berigaa u ahaa bilowgii hore wuxuu isku dayey inuusan arrinta aan jaaliyaddu iyo dowladdu ay ka wada hadlaan oo caruurta tan aan kiiska lagu adkayn laakiin loo sameeyo rehabilitation treatment waxyaalo lagu caawinayo jaaliyadduna ay mas-uuliyadda qaadato oo caruurta tan arrinta tan inaanay mar dambe dhicin dowladda lagala shaqeeyo sida saxaafadda aan ku arkaynay waxaa qayla afka la furtay waxaana lagu samaynayaa been baana laga samaynayaa waana la ceebaynayaa jaaliyadayadii baa laleeyahay shabaab baa tihiin iyo wixii lamid a iyaguna waxay sameeyeen waa ku cariigsadeen caruurta kiiskii waa lagu adkeeyey soddon sanaa loo gooy because jaaliyaddu xal lama imaan inta lala fadhiistay lama oran war wixii waa aragnaa dhib baa jira maxaanu idinla qabanaa iyagu maxay danaynayaan iyagu wadanka securitygiisa iyo amnigiisay danaynayaan inana maxaynu danaynaynaa caruurteennana inaan la xidhxidhin sumcadda jaaliyaddana aan dhib soo gaadhin marka win situation waa laga wada hadli karay wax in meel dhexe la isugu yimaado oo arrinta tan laga wada waxaa ka mid a
caruurta tan wiilasheenan hadda hubka wada qaatay ee gruubiska ama gaangiska iyagina islaynaya meesha la yiraahdo maxay hadda sameeyeen maalin cad oo ciida bay hadgalay waxay weerareen Mall of America xafladan oo graduation bay weerareen waxay sameeyeen July 4th ama 4th July dabaaldegi bay weerareen nin booliis ah hadal yiri waynu wada xanaaqnay sumcadeedii baa la dhaawacaya waxa profiling baa lagu sameeynaya ama takoor baa lagu sameeynaya waxay ahayd in arinta dhibaato loo aqoonsado saddexda arrimood tamusuqmaasuqa iyo tii berigaas ciyaalka la leeyahay waa baxayaan iyo tan hadda ciyaalkeenan hubka wata ee gaangiska noqday in waxa booliis commissionerada 7 counties kan ka jira state ka jiro dhan la isugu yeero public safety commissionerka la fadhiisto la yiraahdo war dhibka waa idin la aragnaa anagana dhib baan haysta idinna dhib baa idin haysta maxaynu samaynaa dabadeedna brainstorming la sameeyo xalka laga wada hadlo hadday qolada dowladdu arkaan wixii inaad danaynaysid xalka inaad ku soo dhawaatid inaad rabtid way kuwa shaqaynayaan laakiin haddaad in denial noqotid wixii baad inkartid oo tiraahdeed waa nala caabeynaya waxna kama jiraan waxaweye way kugu cariigsanayaan marka waa in la isu dheeli tiraa in jaaliyadda sumcadeeda in la ilaaliyo qofkan in xuquuqdiisa qofkan la soo eedeeyey xuquuqdiisii inaan lagu xadgudbin jaaliyadda guud xuquuqdoodii inaan lagu xadgudbin oo aan la ceebayn oo la takoorin iyo dhibkii in wax laga qabto waa in laysu dheeli tiraa waa in saddexda dhinacba laga eegaa arrinka laakiin haddaad ku dhegtid qofkanaan difaacayaa la soo eedeeyey keliya ama aad tirahdid qofkan la soo eedeeyena waan difaacayaa jaaliyadda subcadeedaan ilaalinayaa laakiin dhibaatadii aadan waxba ka qaban dee way kugu sii Soomaalidu waxay u jirtay ragaadkaad isku sii fogeynaysaa ragaadku waa qoriga muda maartay xoolaha iyo dadka iyo marka qofka lugaynayo ragaadkii baad isku sii fogeynaysaa dhibaatadii baad isku sii badinaysaa iyaguna waxay kugu arkayaan dad meesha wadanka dhibaato ku ah oo aan xal rabin baa lagu arkaya marka takoorkii iyo wixii aad ka cararaysay way sii shanjibaarmaya waaya barnaamijkan kolley arrimo badan baan rabnaa inaan kaga hadalno laakiin waxaan rabaa qaar ka mida madaxda hadda gobolka Minnesota gaar ahaan hadda waa la isu bareeray markii hore wax qasi baa jiray wax walba daaha laga rogay xisbiga Republicanka muddo badana waa ku cadaadinayeen gudoomiyaha gobolka governorka Tim Walz inuu arrimahan baaritaan ku sameeyo arrimihiina hadda siyaasad bay galeen Soomaalidii waxay noqotay the center of the politicska gobolkan Minnesota iyo Mareykankaba saan ognahay madaxweynihii baa ku jira dadka qaarkood waxay u arkaan arrintan inay tahay gebi ahaanba ka hadalka dhaqaalaha ilaa iyo barnaamijkii cuntada ilaa iyo barnaamijkan atheismka arrin siyaasadeed oo xisbiga Republicanka uu ka careysan yahay taageerada codeed ay xisbiga dimuqraadiga ay siiyaan Soomaalida marka ma la oran karaa arrintan oo dhan waxay la xiriirtaa siyaasad oo xisbiga Republicanka wada waad mahadsantahay Axmed Laariyow anigu waxa sababay oo iska cad oo marag madoontada ah baan ka hadlaya horta inay qolada jamhuuriga ama Republicanku inagu adag tahay oo arrimahan ay nagu adag yihiin magaceennana afka ku ballaadhinayaan horta iyadu wax jiro oo weeye oo wax la inkiri kara maaha laakiin dib baan ku celinaya arrimahan in toosh lagu ifiyo musuqmaasuqa marka waxa musuqmaasuqa la yiraahdo fraudka waxa afka qalaad lagu yiraahdo in gobolkan toosh lagu ifiyo oo loo soo jeesto oo aad iyo aad ma garanaysaa meel sare la keeno oo barnaamijka dowladda uu kow ka noqdo anu waxaan oran karaa 4 arrimood oo isa saameynaya ayaa horta sabab u ah marka hore dadka Soomaaliyeed waxa la rabaa inay fahmaan musuqmaasuqu weligii sharci darro ahaa faldambiyeed buu ahaa federaalka dowladda dhexe iyo gobolka labadaba waxay ugu kala duwan yihiin specificska yani waxaa jira wax si gaar ah faldambiyeed u ah dowladda federaalka marka la joogo sharciga federaalka laakiin gobolka aan dambi ka ahayn iyo vice versa wax gobolka dambi ka ah oo federaalka aan dambi ka ahayn intuu way jireen marka horta sharciyadan inta badan markii horey ku qornaayeen buugaagta oo sharciye jiray ahaayeen wax horta hadda cusub ma aha taa weyn la fahmaa labo waxaa isbedelay marka
arrintii saddexda arrimood ee dhimani waxa weeye arrintii cuntada waxay noqotay dhulgariirkana waxaa ka dhigay magnitude-ka ee ay arrintani culayska ay lahayd 250 milyan oo dollar axmed laariyow lacag aad u fara badan weeye waxaa intaa ka sii daran inagu dee ma caddayn karno meeshay waxaan ku sameeyeenna maynaan joogin laakiin dadka la soo eedeeyey hal qowmiyad bay u badan yihiin qowmiyadduna waa qowmiyadda soomaalida